Kacaankii ummadda Soomaaliyeed wuxuu ahaa isbeddel siyaasadeed oo ka dhacay dalka 21 Oktoobar 1969 kadib markii ciidanka militariga ay talada la wareegeen iyagoo afgembi ku riday dowladdii rayidka ahayd ee Soomaaliya. 15 Oktoobar 1969 waxaa la dilay madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo booqasho ku tagay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. Kadib dilkaas dalka waxa uu galay qalalaaso siyaasadeed. 6 maalin kadib dilkii Cabdirashiid Cali Sharmaarke 21 Oktoobar 1969 Generaal Maxamed Siyaad Barre iyo ciidanka qaranka ayaa afgembi kula wareegay taladii dalka. Waxay ku tilmaameen ficilkooda kacaanka barakeysan, iyagoo sheegay inay la dagaalamayaan qabyaaladda, ciribtirayaan musuqmaasuqa, dhisayaanna bulsho ku dhaqmayso hanti wadaag. Kacaanku wuxuu ku bilowday si dardar leh oo Soomaalida iyo adduunkuba la fajaceen, balse waxyaabihii yeeshay saameyntii ugu badnayd gudo iyo dibadba waa aragtiyadii gumaysidiidnimada iyo doondoonistii shanta Soomaaliyeed. Falsafada lagu shaqaynayay waxay ahayd hanti wadaag kaasoo laga soo minguuriyey falsafadii Karl Marx oo Jarmalka u dhashay iyo Vladimir Lenin oo ahaa asaasihii midowgii Sofiyeetka. Wuxuu fikirkan ku dhisnaa hab dadka ay isku wada dabaqad yihiin, wax kastana ay dowladda leedahay. Haddaba maxaynu ka naqaanaa shantii golaha sare ee dowladdii kacaanka? Maxayse yihiin shantan nin xilka ay ka soo qabteen dalka intii uu kacaanku jiray iyo ka horba? Waxaan idinkula wadaagayaa muuqaalkan, balse intaanan u guda gelin muuqaalka waxaan kaa codsanayaa inaad channelka subscribe garayso, muuqaalkana aad like dhahdo si uu u gaaro saaxiibo u wanaagsan sida adiga oo kale. Ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. Shakhsiga koobaad ahna aabbaha kacaankii Soomaaliyeed waa Sarreeye Guuto Maxamed Siyaad Barre. Wuxuu ahaa madaxweynihii saddexaad ee Soomaaliya intii u dhaxaysay 21 Oktoobar 1969 ilaa 26 Janaayo 1991. Maxamed Siyaad Barre oo la sheegay inuu ku dhashay magaalada Garbaharre qiyaastii sanadkii 1919 waxa uu afgembi kula wareegay xukunka dalka sanadkii 1969 waqti ay jirtay xiisad siyaasadeed, isagoo aasaasay golaha sare ee kacaanka. Waxa uu laalay dastuurka, waxa uuna xiray baarlamaanka iyo astaamaha xurriyadda iyo doorashooyinka oo dhan, iyadoo askartii dowladdu la wareegtay dhammaan bangiyada, beeraha, warshadaha iyo shirkadaha ganacsiga oo laga dhigay hanti dadweyne. Taas waxay dhidibada u aastay hanti wadaagga laga soo guuriyey nidaamkii shuuciyada ee dalalka bariga ka jiray. Bilowgii kacaanka Maxamed Siyaad Barre iyo xukunkiisii kacaanka waxa uu bulshada u horkacay wax loo arkayay horumar degdeg ah, iyagoo si iskaa wax u qabso ah ku dhisay waddooyinka, dugsiyada, xarumaha bulshada iyo isbitaallada. Waxa uu sidoo kale hirgeliyey mashruucii qorista Far-Soomaaliga iyo ololihii waxbarista reer guuraaga. Waxaa kordhay ilbaxnimada bulshada iyadoo 40% ay gaareen Soomaalida magaalooyinka degay. Waxaa si weyn loo maalgeliyey oo loo dhisay ciidamada xoogga iyo kuwa qalabka sida, waxayna Soomaaliya ka mid noqotay shanta waddan ee ugu awoodda badan Afrika dhanka ciidanka. Laakiin wixii ka dambeeyay dagaalkii 77 ee Soomaaliya iyo Itoobiya, waxaa xoogaysatay kacdoonka gudaha iyo diidmada nidaamka kacaanka, iyada oo ay xoogaysteen dareenka qabyaaladda, eexda iyo musuqa ka dhex jiray hay'adaha dowladda. Jabhado hubeysan oo ay ka mid yihiin SDF, SNM iyo USC ayaa dagaal xooggan la galay dowladdii kacaanka oo lagu eedeeyay inay tacadiyo iyo dambiyo waaweyn ay ka geysteen gobollada Waqooyi, gobollada Mudug iyo Galgaduud iyo deegaano kale oo ay ka soo jeedeen madaxdii hogaaminaysay jabhadaha hubeysan. Sanadihii dambe ee xukunkiisa waxaa aad u xoogaystay musuqmaasuqa iyo awoodda dowladda lagu takrifalo, caburin iyo xadgudubyo ka dhan ah siyaasiyiinta mucaaradka ah iyo xitaa dadka shacabka ah. Kumanaan shacab ah ayaa lagu laayay duqeymo loo geystay magaalada Hargeysa oo si weyn loo burburiyey ilaa markii dambe dhaqdhaqaaqa waddaniga ee Soomaaliyeed ee SNM iyo jabhadihii kale ee USC ay jibiyeen ciidamadii kacaanka oo laga qabsaday magaalada Hargeysa iyo caasimadda Muqdisho oo ahaa laba magaalo ee ugu waaweyn dalka. Waxaana ugu dambeyn Sarreeye Guuto Maxamed Siyaad uu u cararay dalka dibaddiisa isagoo magangelyo ka helaya dalka Nigeria, wuxuuna halkaas ku geeriyooday sanadkii 1993. Shakhsiga labaad waxa uu 35 sano ka mid ahaa ragga ugu sarreeya ee xilalka ka hayay Soomaaliya waa Maxamed Cali Samatar. Waxa uu noqday wasiirka difaaca, madaxweyne ku-xigeen, ra'iisul wasaare, isaga oo kaalin weyn ku lahaa dhismaha ciidanka xoogga iyo dagaalkii 77 ee Itoobiya, kaasoo ay Soomaaliya ku doonaysay inay ku qabsato dhulka Soomaali galbeed. Maxamed Cali Samatar waxa uu ku dhashay tuulo hoos timaada magaalada Kismaayo ee xarunta Jubbada Hoose sanadkii 1935, isagoo waxbarashadiisa hoose ku qaatay magaalada Muqdisho. Waxa uu ku biiray ciidamada sanadkii 1950, waxa uuna noqday madaxweyne xigeenkii ugu horreeyay ee Soomaaliya. Waxa uu noqday kusimo madaxweyne kadib markii uu Siyaad Barre galay
shil gaari oo sababay inuu ka maqnaado muddo shaqada. Waxa uu sidoo kale noqday wasiirkii gaashaandhigga ee ugu muddada dheeraa Soomaaliya, isaga oo hayay xilkaas intii u dhaxaysay 1971 ilaa 1987. Maxamed Cali Samatar waxa uu ka mid ahaa dadkii lagu eedeeyay inay kaalin weyn ku lahaayeen tacadiyadii iyo dembiyadii ka dhanka ahaa xuquuqda aadanaha ee ay geysatay dowladdii kacaanka. Dembigaas waxaa ku heshay maxkamad ku taalla Maraykanka oo mar ku xukuntay inuu bixiyo $21 milyan. Lacagtaas waxaa loo xukumay dad ay dhibaata ka soo gaartay jirdil ay geysteen askartii kacaanka. Waxa uu noqday mas'uulkii ugu sarreeyay dowladdii kacaanka oo dacwad ka dhan ah loo horkeeno maxkamad shisheeye. Generaal Samatar oo u qaxay dalka Talyaaniga markii uu xukunka laga tuuray dowladdii kacaanka, waxa uu ku geeriyooday dalka Maraykanka bishii Agoosto sanadkii 2016. Shakhsiga saddexaad waa Xuseen Kulmiye Abrax. Sarreeyagaas Xuseen Kulmiye Abrax waxa uu sanadkii 1920 ku dhashay magaalada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud. Waxa uu muddo ka badan 50 sano ka soo shaqaynayay dowladnimadii Soomaaliya, isaga oo ciidamada ka tirsanaa muddo dheer. Waxa uu dowladdii kacaanka ka soo ahaa madaxweyne ku-xigeen, gudoomiye baarlamaan, wasiir iyo taliye ciidan. Waxa uu tababarka ciidamada booliiska ku qaatay dugsiga tababarka booliiska ee Muqdisho sanadkii 1939, isaga oo tababar kale oo sare ku qaatay Kenya sanadii 1944. Waxa uu sidoo kale tababar ciidan loogu qaaday Talyaaniga, isaga oo markii uu dhammaystay noqday taliyaha booliiska degmada Beledweyne. Xuseen Kulmiye Abrax waxa uu sanadkii 1960 ilaa 1968 ahaa gaashaanle sare oo ka tirsan ciidamada booliiska Soomaaliyeed. hase ahaatee waxa uu u dallacay sarreeye guuto sanadkii 1968, isaga oo ah taliye ku-xigeenka ciidamada booliiska Soomaaliyeed. Waxa uu kadib noqday wasiirka arrimaha gudaha. Kadib markii loo dallacsiiyey sarreeyagaas, waxa uu noqday madaxweyne ku-xigeenka koowaad intii u dhaxaysay 1971 ilaa 1976. Kadib waxa uu noqday wasiirka qorsheynta qaranka iyo arrimaha gudaha. Burburkii ka horna waxa uu soo noqday gudoomiyaha golaha shacabka. Shakhsiga afaraad waa sarreeye guuto Axmed Suleymaan Dafle. Waxa uu ku dhashay magaalada Burco ee gobolka Togdheer sanadkii 1937. Waxa uu sanadkii 1959 waxbarasho dhinaca ciidanka ah loogu diray akadeemiyadda ciidamada ee Ingiriiska, halkaas oo uu 3 sano wax ku baranayay. Waxa uu ku soo noqday Soomaaliya sanadii 1962, isaga oo xidigle ah. Waxa uuna tababare ka noqday dugsigii saraakiisha ciidamada ee Muqdisho. Sanadkii 1967, sarreeye guuto Axmed Suleymaan Dafle waxa uu taliye urur ka noqday ciidamadii fadhigoodu ahaa magaalada Saylac, xilligaas oo ku beegneed waqtigii abtida laga qaadayay dalka Djibouti. Waxa uu isla sanadkaas madax ka noqday xafiiskii wardoonka ee ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed, isaga oo isla markaasna xoghaye u ahaa Maxamed Siyaad Barre oo ahaa taliyihii ciidanka xoogga. Sanad kadib waxa uu u dallacay gaashaanle, isaga oo sanadkii 1969 ka mid ahaa saraakiishii afgembiga kula wareegtay xukunka dalka kadib dilkii madaxweyne Cabdirashiid Cali Sharmaarke. Dafle oo ay u dhaxday gabadhii Maxamed Siyaad Barre waxaa 2 jeer la dallacsiiyey intii u dhaxaysay sanadihii 1970 ilaa 1971, iyada oo la siiyey darajooyinka gaashaanle dhexe iyo gaashaanle sare. Dallacsiinta dambe kadib waxa uu noqday taliyaha ciidanka nabad sugidda qaranka. Waxa uu xubin ka noqday guddigii golaha sare ee kacaanka sanadkii 1974, isaga oo qaabilsanaa dhinaca nabadgelyada. 2 sano kadibna waxaa loo dallacsiiyey sarreeye guud. Waxa uu Dafle ka mid ahaa dadkii ugu dhowaa Siyaad Barre, iyada oo lagu eedeeyay inuu qayb ka lahaa tacadiyo iyo dembiyo ay geysatay hay'adda nabad sugidda intii uu xilka hayay, iyo tacadiyo kale oo ay geysteen kacaanka. Wixii ka dambeeyey markii xukunka laga tuuray kacaanka, waxa uu Axmed Suleymaan Dafle ku noolaa dalka dibaddiisa. Shakhsiga shanaad waa gaashaanle sare Axmed Maxamuud Faarax. Waxa uu soo ahaa wasiirkii hore ee macdanta iyo biyaha dowladdii kacaanka Soomaaliyeed, isagoo xilal kala duwan ka soo qabtay dowladda. Waxa uu ka mid ahaa guddigii siyaasadda ee xafiiskii hanti-wadaagga ee ka koobnaa 5 golaha sare ee kacaanka. Waxa uu soo noqday wasiirkii boostada iyo isgaarsiinta, wasiirkii warshadaha, iyo wasiirkii ganacsiga. waxaana uu ahaa shakhsiga shanaad ee ka tirsanaa 5tii golaha sare ee kacaanka ummadda Soomaaliyeed. waxaana halkaas ku eg warbixinta aan ka diyaarinay 5tii golaha sare ee kacaanka ummadda Soomaaliyeed ee uu horkacayay Allah u naxariistay sarreeye guuto Maxamed Siyaad Barre oo ahaa madaxweynihii saddexaad iyo kii uu waqtiga dheeraa Jamhuuriyadda Soomaaliya.